السلام عليكم. qayb kala geli doonaa waxa waaye qaybtan cube equation waa sideena hore. qaybta galayna maanta waxa waaye factory. Okay, bal aan example qaadano. waxaa haysanaa equationkan oo ah x cube laga jaray 4x square laga jaray 9x lagu daray 36 oo la mid ah eber. factoring markii lagu dhahayo macnaha sida ay tahay si ka fudud ayaa sameynaya, macnaha waa kala jijabine. hadda for example haddii inta x square waaye, intana waxaa taalo x cube. markii factoring la dhahaa x cube waxa waaye x lagu dhufta x waa maha laga jaray 4x square waxaa x lagu dhufta x 2x waa mujeda laga jaray 9x lagu daray 36 maxay noqon kartaa? waxay noqon kartaa 9 lagu dhuftay 4 oo la mid ah eber. okay, hadda waa fududeeya shakada. inta 2x ku haysataa, intana 2x ku haysataa. 2x haddaa isku dhufatana x square waaye, marka labadaana la baxay. kaawina ku sameyna labadaas iyo labadaana la baxay, 9ka waa la baxay kuwaana. okay, maxay ka dhigantaa? waxay ka dhigan tahay anigoo dhahay x square markaa la baxay waxay ka dhigantaa saan x laga jaray 4 mujeda cause 2x ay wataan labadoodu. x square-ka la bax saani noqoto. haddaad isku dhufatidna isla waxaan kor ku yaala ayaa kusoo noqonaya. x square lagu dhufta x waa x cube, x square lagu dhufta 4x na waa 4x square. okay, negative 4. okay, intana 9 waaye. haddii aad 9 kala soo baxo waxay noqon kartaa ma negative 9 la soo baxaa ama waxaa la soo baxaa positive 9. okay, negative 9 la soo baxa soo qaad. waxaa helaa markaas x laga jaray 4 oo la mid ah eber. su-aasha waxay tahay inta ku dareeb aheede waayo inta negative u noqoto. inta maxaa ka dhig negative? sababtay tahay meeshaan negative taalay ma fahanta? meeshaas negative taale, marka haddii isla asiga la soo baxo waxay ka dhigan tahay x ka positive oo noqday, kanne positive-ku oo ahay inuu negative noqdo. sababta ay tahay inay islahaataba kor iyo hoos. haddii negative 9x ku dhufto x waxaa helaa negative 9x. negative 9 haddaa ku dhufto negative 4 waxaa helaa 36 oo positive ah. bas negative lagu dhufto negative waa positive. kabacdina maxaa dhici kara marka? kabacdina waxaa dhici karo labadan equation waxaa u dhaxeeyo negative-kaas waxayna iskaga mid yihiin labadan x laga jaray 4. haddii x laga jaray 4 banaanka usoo baxsado maxaa ii helaa? haddii labadooda banaanka usoo bixiyo waa inaan ku dhufto x square waxa ii helaa laga jaray 9. see ku dhacday?
because haddaa isku dhufto labadan waxaa helaa waxa kor ku yaal because labadan haddaa lasoo baxo kan iyo kan haraaga waa x square laga jara 9 haddana kan aan sii yareyna kan waxaa ku yarey kartaa haddaad dhahdid x square laga jara 9 oo lamida eber xisaab ahaan waa sax inaad dhahdid taas sababtay tahay meeshaan ku darma taalo waa ku dhufo waa sii fududaynaa washa marka kan wuxuu la mid noqonaa x square oo lamida 9 oo lasii mid ah x oo lamida ugu dara laga jaray square root oo 9 ugu dara laga jaray 3 waxay ka dhigantaa lagu dara laga jaray 3 waxay ka dhigantaa x waxay noqon kartaa 3 ama x wuxuu noqon karaa negative 3 mafahant x1 iyo x2 aa dhahay laakiin x keliya waa dhihi kartaa muhiim maaha marka haddii x kan saddexdan hadda bidix keeno inta waxaa ku haystaa saddexdan hadda bidix keeno saasay noqone kan kalena hadda bidix keeno wuxuu noqonaa x lagu daray 3 oo lamida eber waa ila socotaa malana hadda bidix keenta maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay x laga jaray 9 x square laga jaray 9 oo lamida kaas wuxuu noqon karaa taasi waxay noqon kartaa x laga jaray 3 lagu dhuftay x lagu daray 3 oo lamida eber haddii labadan haddaa isku dhufatid labadan waxa kor ku yaala kuu soo baxa okay marka aan usoo noqono xisaabteena x square laga jara 9 waxay la mid tahay x laga jara 3 lagu dhuftay x lagu daray 3 xisaabteen intay ka bilaabato waxay ka bilaabatay korkaas waxaan dhahnay x square laga jara 4x x cube laga jara 4x square laga jara 9x lagu daray 36 oo lamida eber kan oo dhan wuxuu la mid yahay x laga jara 4 x lagu daray 3 x laga jaray 3 oo lamida eber mafahant laga yaabo inaan si fiican u sharaxin laakiin waad dareemi kartaa haddii halahan aa fahantay bilowga hore halahanna waa fahantay ka dhigan tahay halahaas haddaa fahantay waxay kasii dhigan tahay waxaan aan sharaxooyana halahanna waa fahantay jawaabtana waa taasaa halahaasaa fahantay halahan haddaa fahantay halahanaa fahantay marka waad dareemi kartaa jawaabta san laga yaabo inaan marka kuwaad fahmin laakiin aniga waxaa iga tale ah inaa soo celisid videoga saa u fahantid marka jawaabteena waa sidaas jawaabteena waa saas marka halahan video ku istaajinaa waa bilaahi tawfiiq